فنانين iyo abwaano ka yimid magaalada Jigjiga ee caasimada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo dhaweeyay madaarka caalamiga Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ee magaalada Kismaayo. Soo dhaweynta hoboladan ayaa waxa qayb ka ahaa qaar ka mid ah fanaaniinta Kismaayo, dhalinyaro iyo haween iyadoona lagu soo dhaweeyay heesaha dhaqanka ee dhaantada noocyadooda kala duwan. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynta oo madasha kula hadlay Jubbaland TV ayaa si qurux badan u soo dhaweeyay martida. intan quruxda badan aan u sameynay dadkii dhiigga iyo lafta iyo jiirku naga dhaxeeyay oo nooga yimaaday Jigjigo yaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno Jubbaland. Haweenka Jubbaland waa dalkiinii labaad idinka iska leh, waa deegaankiinii ku soo dhawaada gacmo furan keena gariirsiyada saan malaynaya. waxaan halka ku soo dhaweynaynaa dhalinyaro nooga timaaday fanaaniinta deegaanka walaaladay Axmed Eesh Cala Isaagay Cabdulwali Xasan Dhuux walaalkay Bishaar iyo walaashay Idil Ayruus waxaan leenahay ku soo dhawaada deegaankiinii iyo dalkiinii iyo magaranaysaa dad idin jecel reer Jubbaland aad iyo aad bay magaranaysaa idin taageerayaan haddaan nahay fanaaniinta Jubbaland baan soo dhaweynaynaa welcome baan leenahay. maanta waan ku faraxsanahay soo dhaweynta quruxda badan oo halkan ku qabanay oo ku soo dhaweynaynaa walaashay Idil Ayruus iyo walaalkeen Bashiir Awal iyo sidoo kale walaalkay Cabdulwali Xasan Dhuux iyo Axmed Eesh Cala soo dhawaada mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaada dhulkiin hooyo. dhanka kale fanaaniintii iyo abwaanadii lagu soo dhaweeyay Kismaayo ayaa iyagana ka mahad celiyay sida quruxda badan ee loo soo dhaweeyay sidoo kalena sheegay qorshaha imaatinkooda. wano ciid bay noo tahay ma sha Allah waxaanu joognaa magaalada Kismaayo ahayd waxa weeyaan xarunta caasimadda Jubbaland ayaanu ku sugannahay manihin dad soo socdaalay iyo dad meel ka yimid iyo dad magaalo intii ka yimaadeen magaalada soo kacay dad intii gurigoodii ka soo baxeen gurigoodii yimid ayaanu maanta u egnahay. waxa weeyaan maaragtay sharaf iyo qurux noo ah in magaalada Kismaayo ahayd oo la kala harin hooyooyinkii dhalinyaradii ciidankii kooxihii fanka oo dhameystiran waxa weeyaan dhalinyaro aad u qurux badan oo qalbigooda wanaagsan yahay waxa weeyaan si qurux badan noo soo dhaweeyay inaan maanta aragno reer Jubbaland aanu garoonka korkiisii ku wada dhaanta tumanno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. milyan jeer waxaan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin madaxaad noo saaran tihiin. dib waxaan u mahad celinayaa meeshan kabaramaanada ku hawlan muuqaalka quruxda badan say u duubi lahaayeen ma sha Allah ilaa min mobile ruux haysta ilaa min kamarad aad baan ugu mahad celinayaa dhaqankan halkan uga mahad celinayaa wiilasha iyo gabdhaha quruxda badan ee cagta ciyaaraya baan halkan uga mahad mas'uuliyiinta abwaaniinta ururka dhalinyarta hooyooyinka dhammaan Jubbaland oo midaysan waxaan leeyahay annaguna waxaanu idin nahay walaalihiin waanu idin nimidnay ma sha Allah tabarakallah aad baad ugu mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin maxay tolaysaad noogu taagantiin aad baan idinka mahad celinayaa mas'uuliyiin anoona kala qaadqaadan mas'uuliyiin wax walba baan taaganahay dad baa maanta dhan noo taagnaa sharaf iyo karaamo maanta de farxad ma hadli karo intaan oran lahaa Eesh Cala baa iigu horeeyay inuu iiga horeeyo ma intaan maslaa tiriay oo maartay isku soo xareystay marka wiiga booy marka ma sha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Kismaayo reer Kismaayo kaliya laab dad ah anaga maartay intaan Jigjiga ilaa halka intaan soo soconay na sugayay noo diyaarsanaa inay soo dhaweeyaan maartay diyaar u ahaa aad baan horta maartay ugu mahad celinaya waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dad walaaladana ah oo aad noo jecel baan runtii aan meesha ku aragnay kulley xubnihii ugu horeeyay baa waxyaabo ugu wanaagsanaa yiri marka haduu Ilaahay yiraahdo kulley Jubbaland waan joognaa haduu Ilaahay yiraahdo wixii maartay dambe kulley dib baa laga sheegi doonaa sidoo abwaan ku sheegay aad baan runtii u faraxsanahay qalbi jiracsan baan oo hadalka isku mana fiicnine aadna waan u faraxsanahay oo aan taagnahay. Cabduqaadir Axmed Cali telefishinka Jubbaland Kismaayo.